معاذ بن جبل با waxa laga soo arooriyaa bal ibn Hajar rahmatullahi alayhi fi fathi yuhulay sanadku waa sahih waxa laga keenaa inuu oran jiray ijlis bina nu'min saa'a ardadii fi dadkii la socday buu xulayna fariisiya an saacad ilaahi rumaynay miyana ilaahi rumaysnay subhanahu wa ta'ala ma wuxuu rabaa inuu iimaankan koriyo oo kobciyo beero oo waraabiyo war iimaanku uu yaraada qaara hadii la kobcin waayo ama se uu murxo muldado oo shiiqo madho oo idlaado wax la aan soo baxo waxa ka garan karta xadiiska shafaaca kuwa naarta galay marka dambe laga soo fagayo nabigu uu tilmaamay alayhi salatu wasalaam in la yiraahdo ka soo saara ka iimaanku ay kaga hadhay xabatu shaciir yani wala kala iimaan weeyay kuwi iimaanka weyna iyagu siraadkaba hilaacay ku mareen naar iyo waxan la isma aragay siraadkaba bidoon xisaab biligla lagu maray kuwi iimaankoodu meel dhexe maray nin faras fuushan oo kale ku maray kuwi aanaadka u xooganayni iyagoo min makhdushin wa makdusin bay mareen kala liibta kala laada iyadoo ay dhaawacday oo dacladu dhiig ku daayaan bay ka dhaafaan qaar iyagoo beerka ku gurguuranayay maraan qaarna jahannamay ku daataan kuwa jahannamo ku daata hadii iimaanku wuxuu ka sii hartanaaba kolba in la soo fagaa kuwi salaadaha iyo tukan jiray baa laga soo horfagaa waxay yiraahdaan ilaahu maxaan ku garanaynaa dadka waa dhuxuloobayna eegtaba la yiraahdo mawadiic sujuudka meeshii sujuudaas naartu ma cunte xadiisu shafaaca wuxuu tilmaamaya dadka iimaankoodu sidoo kale yahay idan waxaynu u baahannahay inaynu iimaankeena u feejignaano halka uu marayo ilaahay haduu ina leeyahay ayuha alladina aamanu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl hadii lagu leeyahay aayaadka kan nabi muhammad alayhi salatu wasalaam ya abi bakr ya umar ya uthman ya ali hadii kuwa alle uu kula hadlayo aaminu billahi inagu intaynu u baahannahay in laynu kula hadlo markaas waxa kamid ah xadiiska nabiga alayhi salatu wasalaam ka sugan xadiiska uu imaam ahmad soo wariyay ama soo saaray sahih al-jami' as-saghir sheekh al-albani uu soo saarayo wuxuu nabigu leeyahay inma al-qalbu min taqallubi inma mathalu al-qalbi kamathali ar-risha mu'allaqa fi asli shajara yuqallibuha ar-rih dhahran li batn nabi muhammad alayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay qalbigaba waxa qalbi loogu bixiyay min taqallubi gadgadoonkiisa iska gadiga kan uu iska gadinayo ee xaalada kala gadisan uu marayo daraadeed ba qalbigaba qalbi loogu bixiyay qalbiga bini'aadamku wuxuu la mid yahay buu nabigu leeyahay alayhi salatu wasalaam sidii riisha ama baal geed guntii laga taagay oo dabayshu ay kolba dhinac u dhigayso geed hadaad guntiisa baal ka taagto baalku waa wax khafiif ah haday dabayli soo dhacdo waxa macruufa inay kolba dhinac u tuurayso nolosha imtixaanaadkeeda dabayshana nolosha imtixaanaadkeeda markasto aad nolosha joogto mumtaxan baad dib baa ku haysata si un baa lagu imtixaama walidaalika wuxuu u baahan yahay qofka mu'minkii inuu iimaankiisa cusboonaysiin karo nabiga alayhi salatu wasalaam xadiiska ka sugan sheekh al-albani مثلا ظلال الجنه كتابك الله يراده uu ku oranayo sanadkiisu waa sahih waxa uu nabigu leeyahay alayhi salatu wasalaam laqalb ibn adam asra'u taqalluban min al-qidr idha ijtama'at ghalayana qalbiga qofka bini aadamkaay waa ka gadgadoon badan yahay dharigu markuu kulka dhameystirto dhariga sida uu kululaaday ee biyuhu ay dhameystirmeen kuleelkiisa isla barogaya sida uu isu laba rogaya buu nabi maxamed leeyahay alayhi salatu wasalaam qalbiga bini aadamkii wuu iska laba rog badan yahay idan intee baad u feejigtahay hoostaada dheriga ka karaya inaad qaboojiso intee baad u soo jeedaa dheriga kan inaad damiso ama aad qaboojin kartid waxaan leenahay nabigu alayhi salatu wasalaam ahadiistiisa waxa markaa kamid ahaan jirtay inuu in badan ilaahay bariyo xadiiska sahih muslimka ku yaalay allahumma musarrif alqulub sarrif qalbi ala ta'atik ama shahr ibn hawshab xadiiskii uu ka warinayay al-mu'minin markuu nabigu gurigaaga joogo maxaa ducooyinkiisa ugu badnaa waxay tiri ducada ugu badan ee uu akhrin jiray nabigu waxay allahumma ya mughallib al-qulub thabbit qalbi ala diini nabi maxamed baa wuxuu rabbi weydiisanaya ilaha qalbiga bini aadamka gagadiya inuu qalbigiisa diinta ku sugo akhwati fil aqeeda marka waxaynu u baahanay inaynu fahamno ya ayyuhal ladina aaminu billahi wa rasulihi sida awgeed ayaa waxaynu u baahanay ilaahay subhanahu wa ta'ala dulbu quraanka ku tilmaamaya qalbiga ku dhacay sababtuna ay tahay waqtiga ku dheeraaday dabeetana waanaday waaye ilaahay wuxuu quraanka ku leeyahay alam yani lil ladina aamanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min alhaq miyanay gaadhin ba ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala kuwa mu'miniin tahay waqti qulubtoodu ay khushuucdo oo ilaahay dhikrigiisa iyo xuskiisa iyo wama nazala min alhaq waxa la soo dajiyay diin ee xaq ah waqti ay qalbiyadoodu u jilicdo miyanay gaadhin oo wala yakunu aanay lamid noqonin kalladina utul kitaba min qabl fatala alayhim alamad
faqasat quluubuhum ba ilaahi wa aanay la mid noqonin kuwii kutubta hore loo siiyey ee waqtigu ku dheeraaday ba ilaahi leeyahay subxaanahu wa ta'ala haddii waqtigu dheeraado adna aad cusboonaan weydo waad dhimanaysaa waad gaboobaysaa noloshu waxay u baahan tahay iimaankaaga inaad la daba taagantahay inaad cusboonaysiinayso shaqo kastoo aad qabato xataa haddaad jihaad gasho si aad dhiigga ugu jirto marka dambe qalbigayga baad qaadi haddaanad rabbi in badan dib u xasuusan dib iimaankaaga u cusboonaysiinin dib u noolaanin walidaalika waxa uu u baahan yahay qofka mu'minka ahi iimaankiisa inuu mar walba cusboonaysiiyo iimaanku wuxuu ku cusboonaadaa bilcilm wuxuu ku cusboonaadaa bidikr wuxuu ku cusboonaadaa xalaqaat alcilm xalaqaat aldikr wuxuu ku cusboonaadaa dhulka alle subxaanahu wa tacaala la isku xasuusinayo sida daraaddeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya duul intuu ka warramay walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun alisraar cala almacsiya ayaa qalbi madowga keena iimaanku markaas kullamaa aad xagga cibaadada usii janjeedho iimaankaagu cusboonaysiintiisa iyo koristiisuba way socotaa kullamaa xagga imtixaanaadka aad u bambaxdana iimaankaaga nuqsaantiisa iyo dhibtiisiiba socota wallahu aclam billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah